adduunyadan inta ku nool oo idil dhammaantood si isku mid ah waxay u haystaan waqti cayiman ay dunyada ka tagayaan. Ha ku kala dheeraadaan inta dunida ay joogayaan, intay caafimaad ka haystaan, hantida haystaan, wanaagga ay haystaan, laakiin waxa ay ka siman yihiin dhammaantood in aysan jirin qof joogi doona. haddaba haddii ay tahay arrintaasi mid la hubo oo sax ah, ka warran inta yar aan haysanay aan noolnahay haddii aan isku dayno inta karaankeenna aan awoodno inaan caawinno walaalkeen. waxaan idin hayaa arrin ku saabsan. dhegayso oo si fiican u fahan qisadan si aad u dareento macaanta ay leedahay markii aad walaalkaa caawiso aad ka farxiso. sheekh cabdiraxmaan waxa uu leeyahay waxaan ku sugnaa duruuf aad u adag. waxaa igu adkaatay nolosha, waxaana waayay nolol maalmeedka. waxaan awoodi waayay inta yar ay dhuunta marinayaan carruurtayda inaan magaalada ka soo helo. waxaan ku khasbanaaday intii aan daawan lahaa carruurtayda oo hortayda ku dhimanaysa gaajo darteed inaan aado saaxiibkay Cumar si aan uga soo daynsado wax aan noloshayda ku dabarto. intii aan sii socday waxaan go'aansaday inaan saaxiibkay weydiisto qarash fiican, ugu yaraan si aan u samaysto ganacsi aan noloshayda ku dabaro. waan u tegey, waxaana ka soo qaatay lacagtii aan u sheegay oo idil, isaga oo aan wax su'aala i weydiinin iguna adkaynin ayuu i siiyey qarashkii. noloshu sida aad mooddo ma aha. wixii aan filayay iyo qorshihii aan dejiyey oo idil waxa ay noqdeen cagaha oo madaxa laga saramariyey. way isdabagdiyeen. hadafkii iyo ujeedkii aan sameeyey oo dhan wuu baaba'ay. dayntii aan soo qaatay oo dhan cagta ayaan mariyey. waxaana mar kale ku soo noqday noloshii aan shalay ku sugnaa. maanta waxaan u baahanahay haddana qof kaloo i caawiso si ugu yaraan aan noloshayda u dabarto. aniga oo rafaadsan noloshan iga xun tahay ayaa maalin maalmaha ka mida waxaa iga soo horbaxay saaxiibkay Cumar. waa ninkii igu lahaa deynta faraha badan lahayd. naxdinta aan naxay ma qiyaasi kartid. intuu ii wacay ayuu i salaamay, wuxuu igu yidhi, war cabdiraxmaanow, niw saaxiibow ma nolosha ciriir kugu noqotay? duruuf maa ku haysa? waxaan ku idhi, niw saaxiibow, Cumarow, waa u jeeddaa xaalka aan ku suganahay, xataa waxaan awoodi waayey inaan iska bixiyo deyntii aad igu lahayd oo ay dhammaatay wakhtigii aan kuu qabtay. wuxuu igu yidhi, niw ka warran haddii aan kuu noqdo Jaabir Casaraatulkiraam. markaasaan waxaan ku idhi, waa kuma Jaabir Casaraatulkiraam? maxaasaa laga wadaa? Cumar waxa uu yidhi, waxaa jiri jiray nin la yidhaahdo Khusaymat ibnu Bashiir. waxa uu ahaa nin ganacsada ah, hantiilo ah, dadkuna aad u jecel yihiin dadkana caawiya. weligiis ma dhicin qof wanaag ka soo doonay oo ku hungoobay. qadartu ilaahay cidinuma celin kartee, ninkii waxaa ku dhacay fakri aad u xun, waxaana baaba'ay dhammaan hantida uu lahaa iyo ganacsigiisii. waxa uu is yidhi, niyow dadkii aad caawin jirtay wanaagga u samayn jirtay bal ka doono adigana ha ku caawiyaane. nasiib darro, dadku waa ay isbeddeleen, waana waayey qof xataa weji ahaan soo dhoweeya. waxa uu filayey oo dhan wuu ka waayay dadkii. waxaa xanuun faran badan ku haya isaga oo ahaa nin hantiilo ah oo dadka caawiya, maantana jooga booskii dadkii la caawinayay, laakiin aan haysanin booskii isaga uu jooga ee dadka lagu caawin jiray qof maanta u gasha. waxa uu yimid xaaskiisa oo in adeertii ahayd, wuxuuna ku yidhi, walaalay, maanta wixii ka dambeeya waxaan go'aansaday inaan guriga ku jiro ilaa Ilaahay subxaanahu wa tacaala iga oofsado oo aan adduunyadan isaga tago. ogow, maanta wixii ka dambeeya guriga kama bixi doono. albaabka ayuu isku xiray, guriga ayuuna ku uruuray. xaaskiisu arrintaasi dadkii oo dhan waa u sheegtay. qof walba weydiiyaa waxay ku tidhaahdaa, wuu faqiiroobay, guriga ayuuna isaga aruuray. maalin maalmaha ka mid a, iyada oo la joogo goob uu jooga ninkii madaxda ka ahaa magaaladaasi oo la dhihi jiray Cikrama, ayaa waxaa sheekoodii meesha ka socotay soo dhex galay Khusayma. markaasuu ninkii xaakimka ahaa ee magaalada xukumaya Cikrama wuxuu ku yidhi, war Khusayma maxaa ku dhacay? waayadan il lama saarine, ninkii maxaa helay? waxaa loo sheegay arrintii inuu ninka guriga isku soo xiray, geerina halkaa ku sugay.
ninkii cikrama ahaa oo mas-uulka ka ahaa dadka meesha ku nool magaaladana madax ka ah wuxuu habeennimadii go'aan ku gaaray inuu baytulmaalka ka qaado 4,000 oo diinaar. waxa uu qaatay faraskiisii waxa uuna habeen madow tagay gurigii ninkii Khusayma ahaa oo hantiilaha ahaa ee faqriga inta galay guriga isku soo xiray. albaabka ayuu garaacay waxaana ka furay isaga. wuxuu markiiba u dhiibay lacagtii oo ku jirtay gunud yar. wuxuu ku yidhi waa kuma adiga. wuxuu ku yidhi aniga uma imaanin inaan isu kaa sheego. haddii aan raba inaad i ogaatana waxaan kuu imaan lahaa maalin cad oo saacaddan habeen madowga oo mugdiga ah kuma imaadeen. ninkii intuu ku soo booday ayuu ku dhagow wuxuu ilaah baan kugu dhaarshay qofka aad tahay isu kay sheeg kumana day doona ilaa isu kay sheegto. xaakimkii wuxuu ku khasbanaaday ninkan inuu wax u sheego. wuxuuna ku yidhi niyahow waxaa la yidhaahdaa Jaabir Casaraatul-Kiraam. wuxuu ku yidhi Jaabir Casaraatul-Kiraam waa kuma intaa wax loo dhaafiya ma lahan ayuu ugu jawaabay wuuna iska tagay. ganacsadihii faqriyoobay guriga ku xirnaa noloshana ka quustay waxa uu soo qaatay qandulkii lacagta ku jirtay wuxuuna u yeeray naagtiisii. wuxuu ku yidhi bal bishaarayso ilaahay subxaanahu wa tacaala farajkii aan ka sugayn waa uu noo keenay. markii la furay waxa ay noqotay lacag. labadoodiiba way aamini waayeen. waagii markii uu baryay dhammaan wuxuu iska xalliyey wax alla wixii duruufu haystay waxaana u soo noqotay sharafkiisii iyo wanaaggiisii. wuxuu dib u bilowday hantidiisii wuxuuna go'aan ku gaaray inuu baxo oo uu u tago khaliifkii muslimiinta oo xilligaasi ahaa Sulaymaan bin Cabdilmalik. markii uu u yimid khaliifkii ee loo sheegay ninkan iridda u taagan waxaa loo daayay gudaha. khaliifku waa ay sheekaysteen wuxuuna ku yidhi niyahow maxaad mar hore noogu imaaweysay. wuxuu u sheegay in duruuf fara badan ay qabsatay hantidii ka baaba'day laakiin ilaah subxaanahu wa tacaala uu u soo diray nin la yidhaahdo Jaabir Casaraatul-Kiraam. jaabirkan la sheegayo waa ninkii madaxda ka ahaa ee Cikrama la dhihi jiray oo diidanaa in la ogaado magaciisa inuu sheegana ka gaabsaday. khaliifkii wuxuu ku yidhi ninkii ganacsada ahaa war niyow ninkan Jaabir la yidhaahdo ma taqaanaa si aan ummadoo dhan ugu sheegno wanaaggiisa kartidiisa dad jacaylkiisa iyo siduu nin fiican u yahay dadka u sheegno. wuxuu yidhi niyow ma aqaan intaasuu ii sheegay wuuna iska tagay. markii hawshii u soo gabagabowda ninkii ganacsadaha ahaa ee uu damacsanaa inuu dib u soo aado magaaladii ayaa khaliifkii wuxuu ku yidhi waxaan kaa dhigay ninka magaalada madaxda ka ah ninkii ka ahaana waan beddelay. qaado warqaddan u geey xilka ha kugu wareejiyo dadkaasina adiga maamul. ninkii ganacsadaha oo aad u faraxsan ayaa wuxuu ku soo laabtay magaaladii. wuxuu u yimid ninkii magaalada madaxda ka ahaa. wuxuu ku yidhi Cikrama waa lagaa qaaday xilkii aniga ayaana la wareegay. akhriso warqaddan xilkan iska soo wareeji. xil wareejintu markii ay socotay iyo xisaab celintii ayaa waxaa la waayay 4,000 oo diinaar oo ka maqan qasnadii dowladda. ganacsadihii xilkan cusub loo soo magacaabay waxa uu ku yidhi ninkii hore ee xilka hore u hayay aaway 40,000 ee diinaar ee ka maqan qasnada dowladda. wuxuu ugu jawaabay niyahow waa deyn aniga qaatay aniga ayaa laygu leeyahay waan iska bixin doonaa. intuu carooday ayuu wuxuu ku yidhi ha la xiro gacnaha ka xira lugaha ka xira xabsigan ha la dhigo. Cikrama waa la taxaabay. waa ninkii wanaagga u sameeyey. xaaska Cikrama oo u dulqaadan weysa ninkeeda oo xabsiga in muddo ah ku jiro ninkan cusub ee lasoo magacaabay wanaaggan ay u sameeyeen uusan oggolayn inuu sii daayo ilaa 40,000 isaga lagu badbaadiyey la bixiyo. iyadoo caraysan ayay waxay u soo dirtay gabadheedii ku tiri u tag xaakimkan cusub waxaa ku tidhaahdaa balka warran nin wanaag fara badan kuu sameeyey oo xabsi aad uga abaalgudday Jaabir Casaraatul-Kiraam. arrintaasi marka uu maqlay aad ayuu u naxay. waxa uuna yidhi waan hoogay musiibo ayaa igu dhacday haddiiba ninkii wanaagga ii sameeyey aan xabsi uga abaalguday. wuu soo cararay waxa uuna yimid xabsiga wuxuu amray in laga furo biraha ku xidhan lana soo bixiyo. wuxuuna ku yidhi ii dhiiba biraha. wuxuu damcay inuu isaga intuu isku xiro biraha xabsiga galo intii dhibaato iyo murug soo gashayna uu halkaasi ku dareemo. wuu ka diiday Cikrama wuxuuna ku yidhi ilaa baan kugu dhaariya ha samaynin. wayse soo raaceen waxayna ugu dambayntii wada aadeen gurigii Cikrama. ninkan ganacsadaha ee haddana madaxda ka ah magaalada
wuxuu u cudur daartay xaaskii ninkii wanaagga u sameeyey. kadib ninkii ganacsada ahaa waxa uu soo kaxeeyey Cikrama waxuuna u keenay khaliifkii mu'miniinta ee horey xilka uga qaaday. wuxuu u sheegay ninkan inuu yahay ninkii wanaagga faraha badan la u sameeyey ee geerida ka badbaadiyey, noloshan iyo mustaqbalkan uu haystana u soo celiyey. lacagtan uu ku xiran yahay xabsiga ugu jirana ay tahay lacagtii isaga lagu badbaadiyey. ugu dambayntii ninkii Cikrama ahaa waxaa loo soo celiyey sharafkiisii iyo wanaaggiisii iyo xukunkii uu magaalada ka hayay. ninkii ganacsadahana wuxuu isaga laabtay ganacsigiisii iyo wixiisii oo idil. waxaa lacagtii dib isaga celiyey halkii laga soo saaray. qisadan waxaa sheegaya ninkii Cumar ahaa wuxuuna u sheegayaa saaxiibkii Sheekh Cabdiraxmaan oo deynta loo haystay. wuxuu ku yidhi, Sheekh Cabdiraxmaan, si fiican ma u fahanta saaxiib qisadan iyo waxa ay xambaarsan tahay? Sheekh Cabdiraxmaan oo murugaysan waxa uu yidhi, haa saaxiib, aad iyo aad ayaan u fahmay. waa qiso aad iyo aad cajiib u ah, aadna u wanaagsan. Cumar waxa uu ku yidhi, haddaba Sheekh Cabdiraxmaan oo saaxiibkayow, inta qarasha ee aan kugu leeyahay tiradooda ma taqaanaa? Sheekh Cabdiraxmaan oo madaxu raaraco ayaa waxa uu ku yidhi, haa, intaas ayaad ugu leedahay, niyow mana awoodo inaan hadda bixiyo. Cumar waxa uu ku yidhi saaxiibkii Sheekh Cabdiraxmaan, saaxiib, maanta wixii ka dambeeya lacagta aan kugu lahaa oo idil waan kuu cafiyey. Sheekh Cabdiraxmaan wuu fiiriyey, farxad darteed waxaa ka soo daadatay ilin. wuxuu yidhi, jazaaka allaahu khayran, ilaahay khayr badan ha ku siiyo. wuu filan waayey intaasoo lacaga in loo cafiyo. wuxuuna yidhi, aada u mahadsan tahay, allah ku ilaaliyo, allah kuu siyaadiyo. isagoo ducadii sii daldalaya wuxuu ku yidhi, Sheekh Cabdiraxmaan isdeji, intii aan kugu lahaa ee aan kuu cafiyey warqaddii caddaynta ahayd waa tan. wuu jeexjeexay. maanta wixii ka dambeeya wax lagugu leeyaha ma jiraan, laakiin hal xabbaa ilowsan tahay. Sheekh Cabdiraxmaan wuu yaabay. wuxuu ku yidhi, Cumarow, maxaa ilowsanahay? cumar wuxuu soo saaray lacagtii uu ku lahaa sheekha in la eg wuu u dhiibay. wuxuu ku yidhi, intan waa intii aan kugu lahaa in la mid ah. adiga iska leh, noloshaada ku dabaro, allah kugu kaalmeeyo. saaxiib, hawshaada meeshii aad ka waday ka sii wad. Sheekh Cabdiraxmaan farxadda uu farxay wuu ooyey. wuu garan waayey wuxuu ugu jawaabay saaxiibkii. waxaana halkaasi ka dhashay bartii ay ka beddelantay noloshii Cabdiraxmaan ee murugada iyo rafaadka ahayd oo u guurtay farxad iyo nolol. wuxuu samaystay hanti, ilaahayna waa ku guuleeyey. haddaba daawade, ka warran wanaagga iyo qiimaha ay leedahay iyo samafalka aadka u wanaagsan ay xambaarsan tahay qisadan aan hadda wada dhegaysanay. ka warran marka haddii saaxiibkeen intaan wacno deenta yar ee aan ku leenahay aan idhaahdo, saaxiib, waan kaa cafinay. haddii telefoonka intaan kala xiriirno isaga oo mooda in aan deentii weydiin rabno ku nidhaahdo, warniyow saaxiib, sow intaasoo lacaga kuguma lahayn. marka uu kirta uu yidhaahdo, haa, waa cafi iyo masaabax saaxiib, maanta wixii ka dambeeya waxba laguguma laha. ka warran daawade haddii saaxiibkeen intaan telefoonka lacag ugu dirno ka farxinno isagoona filanayn. ka warran qofka miskiinka ee duruufaysan ee nolosha ku adag tahay aan inta aan awoodno oo farxada siino. walaal, waan awoodnaa in aan dadka saaxiibadeenna ah, walaalaheenna ah, deriskeenna ah ka farxinno si annagana ilaahay nooga farxiyo.